بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أيها الأحبة المحترمين. كسو دوادا برنامج عصب أو كمده برنامج شدي أينو كجاه اللي تشرني فلقة إيو بركوين كسلق النبي صلى الله عليه وسلم. وحن ما انت هالكن أينو برنامج كجاه اللي دورنا زيغة الإبراهيمية أو سيغة كمده سيقوين كنبي عليه الصلاة والسلام لوصليه. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyay sidee baan kuugu salinaa rasuulka ilaahayow waxa uu inoo tilmaamay siiqada salaatul ibraahimiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid siiqadaas oo dhammaantiin aad taqaanaan oo ah marka salaada aynu tukanayno atahiyaadka ta ku jirta salliga nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa aad ku helaysaa dambi dhaaf Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dambi dhaafo iyo in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka kaafiyo wax kasta oo aad ku hamiyeyso sida oo kale salliga nabigu sallallahu alayhi wasallam waa furaha in ducadaada la aqbalo waxa intaas dheer salliga nabigu sallallahu alayhi wasallam waa digriga kaliya ee aad kaga kaaftoomi karto in aad ducaysato ama aad Allah subhanahu wa ta'ala weydiisato wixii aad rabto waayo waa ducada ugu weyn ee uu Allah subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay oo aad sidoo kalena Allah subhanahu wa ta'ala aad ugu dhawaanayso culimadii saalixiinta ahaa marka ay dadka kurbaysan ama dhibaataysan ee warwarsan ay u yimaadaan ama ay weydiiyaan duco degdeg ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo waxay kula talin jireen salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waayo waxa ay ogaayeen in qofka salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam uu Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyo in uusan marnaba ku khasaareynin haddaba qof kasta oo Allah subhanahu wa ta'ala muraad ka leh muraadkaas oo ay ka mid yihiin isagoo raba dambi dhaaf arsaaqad waasica guur caafimaad caruur shaqo darajo shaqo iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo iyo sidoo kale qof kasta oo rajaynaya Allah subhanahu wa ta'ala in uu jeclaado iyo sidoo kale qof kasta oo raba in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka badbaadiyo aafaadka maanta dunida yani halakeeyay ee kala duwan sida cudurrada kala duwan faqriga iyo masiibooyinka kale iyo sidoo kale qof kasta oo raba inuu Allah ka qaado culays kasta oo uu dareemayo waxaynu kula talinaynaa waxa weeyaan talada ah in uu joogteeyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam siiqada ibraahimiyada gabagabadii waxaynu iskula dardaarmaynaa joogteynta salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan ayaamahan oo lagu jiro bishii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhashay iyo mar kasta oo kamid ah nolosheena inaan joogteeno waxaan idinkaga tegayaa astawdicukumullah alladhi la tudiicu wadaa'icahu fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد